munaasabadan oo ahayd mid si heer sare u soo agaasimtay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu xusay 12 Oktoobar oo ah maalintii la asteeyay calanka Soomaaliyeed waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay labada gole ee dawladda Soomaaliya ururada bulshada rayidka dhalinyaro haween fanaaniin iyo bulshada kale ee ku dhaqan degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir ugu horeyntii waxaa ka sheekaynta taariikhda calanka Soomaaliyeed ku dheeraatay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye Soomaaliya waa dal lagu asteeyo xurnimadiisa iyo halgankii inay horseed u ahaayeen dhalinyaro Soomaaliyeed ayaana astaantan qaran waxyaabihii halganka ay u soo galeen markii ay guuleysteen ayaa haddana waxaa la hindisay dalkani inuu noqonayo jamhuuriyad xor ah la siin doono itraafkii marka in calanka ay qaadanayso jamhuuriyaddan waa loo tartamay tartankiina waxaa ku guuleystay allow naxariisagii Maxamed Cawaale Liibaan ilaahay ha u naxariisto asaga iyo intii kale ee u soo halgantay dalkan si Soomaalinimo ah si isu hilbadirida si la isugu shubo dhiiga si la iskugu yahay hal waxa kale oo qayb ka ah mas'uuliyiintii munaasabadan ka hadashay xildhibaan Cabdifataax Qaasim iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo musiibooyinka ee xukuumadda Soomaaliya xildhibaan Cabdirashiid kuwa dhintay ee nool waa in Cawaale Liibaan oo kale iyo raggii sameeyay heesihii kala duwan ama astaanta qaranka ama calanka qaranka sameeyay iyo kuwii u soo halgamay karaamada iyo ciziga iyo sharafta ummadan ay leedahay oo waxaana la nool atharkii iyo raadadkii wanaagsanaa ee taariikhda dhaxalgalka ahaa ay ka tageen ayaana la nool sidaa darteeda waa mujaahidiin waa dad shuhada ah dalkan ka baxay wilina waa inay nool yihiin qaar baa dhintay iyagoo nool waa kuwa maanta u arka calankani inuu yahay